diinta islaamka wax ka mida in lagu dheeldheelaa waa arrin khatar ah oo dembi aad iyo aad u weyn weeye oo gaalnimo ah. waxaana dhacday niman baa waxay yidhaahdeen wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam, nebiga sala allahu alayh wasalam iyo culammada saxaabada cid ka cir weyn maannu arag. marka raashin la cunayo iyagaa ugu cir weyn, dagaalkana cid ka fulaysan maannu arag, hadalkana cid ka been badan maannu arag. wacay iyo dhaleecayn heerkii ugu dambaysay. nin saxaabiyoo maqlayey ayaa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam. qur'aankii baaba ka soo dheeriyey oo ku soo digay. yagiina waa ka daba yimaadeen si ay cudur daartaan. waxay ku cudur daarteen dhab nagama ahayne dhayal iyo cayaar bay naga ahayd, iyo dheeldheel iyo kaftan bay naga ahayd. ilaahay wuxuu ugu jawaabay, qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayadihiisaa ku dheeldheelayseen? ha cudur daaranina waa gaalowdeene ayuu allah yidhi. iimaankiinni dabadii baa gaalowdeene, ha cudur daaranina. waxaa laga qaadanayaa cayda ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama qur'aanka la caayo ama aayaadka qur'aanka la caayo wax ka mida inay gaalnimo tahay. waxaa laga qaadanayaa haddii shayga kufriga ah dhab loo yidhaahdiiyo haddii dhayal iyo kaftan loo yidhaahdaa inaynay farqi kala lahayn ee mid walba ay gaalnimo noqonaysooo diinta lagaga baxayo. waayo lama odhan warkaa been bay ku sheegayaane dhab bay ka ahayd, ee waxay ku dheeldheelayaan wax lagu dheeldheelo inaynay ahayn baa loo caddeeyey. waxaana la yidhahaa cudur daarina waa gaalowdeen. waxay ku gaaloobeen waa maxay? waa dheeldheelkaasay ku gaaloobeen. marka dheeldheelka ilaahay lagu dheeldheelayo ama rasuulkiisa lagu dheeldheelayo ama shay diinta ka mida lagu dheeldheelayo inay gaalnimo tahay ayaa laga qaadanaya. qiso labaad oo shabbahda waxa dhacday ay culammadu soo naqliyeen. waxay culammadu soo rareen nin baa cadayga ku dheeldheelay. markaasaa cadaygii intuu qaaday sunnihii nebiga ahaa, cadaygii sunnaha nebiga ahaa ayuu intuu qaaduu duburtiisa sidaa u mariyey. yacnii taasna wuxuu uga jeeday dheeldheel. ninkii ciqaab baa loo soo dedejiyo calooshaa la dibiriyey. calooshi waa dibirta, waa xanuunsaday. berigii dambaa wax yar oo nool ayuu dhala. markuu soo dhacay waxaasina waa bahal yar oo nool wey. bahalkii yaraa wuu dhinto waa bakhtiyey. wuxuu yidhi waxaasaa i dilay, in yar dabadeed baanu isagana dhintay. culammadu tusaale waxay ugu soo qaataan haddii sunnaha nebiga sala allahu alayh wasalam lagu dheeldheelo siday khatar u tahay bay culammadu tusaalahaan ugu soo qaataan. marka waa in la yska jiraa shareecada wax ka mida in lagu dheeldheelo ama la canjarafeeyo aad iyo aad waa in laysaga jiraa oo laysaga ilaaliya.